وحوي لبا iyo 20 kun way ardada maanta banaanka ku maqan maalinkan maanta inta kale tamarkii laga reebo xaq tacliimeed waxaan filayaa waad ku cilmi leedihiin in mutacallintu aynu ugu talagalay inaanu diidno kudlad yar oo lagu hayay college lagu koolkooliyay inay wax yaqaan Soomaali u noqoto laakiin inaanu cilmiga ka hayno ee aan geyno tuulooyinka inaanu goyno xaafadaha in muxuu ahaa iskuulku uu qof kasto Soomaali uu helo chance isku barto yani inta yar oo iska bixin karta kolleejooyin yar oo loo abaabulay in iyagu elite noqdaanin dadka hadhowto monopolio ku haysta inaanu ka saarno cilmigu inuu balaarto qof kasto Soomaali uu chance u helo markuu chance kiisaas in qof walba kartidiisa iyo aqligiisa iyo raganimadiisa inuu berri ku meel maro isagu ama uu dalkiisa wax ugu taro waad ku cilmi leedihiin in tacliintu ay bilaash tahay aan xoolo laga qaadanin meel kasta baa joogtay waad ku cilmi leedihiin in muxuu ahaa tuulooyinka iyo magaalooyinka si yani muxuu ahaa abaabinta horeetaba ay u hagaagto laga sameeyay wax la yiraahdo ubax ama kaah la yiraahdo ama ubax la yiraahdo markaan kaah leeyahay waxa weeye kuwa oo kaleeto in la geeyo meel lagu xanaaneeyo dadku awood uma wada laha inay gartaan ilmaha habka wanaagsan oo ay u habeeyaan marka meelaha caynkaas inaan u sameeyno si ay dhaqaatiirtu ugu tagi karto ama loogu aabin karo habka wanaagsan bulsho caafimaad qabta ay ku kori karto waxa wax ubax la yiraahdo waa kuwa xoogaa roon iskoolaadka yani ibtidaaga galaanin iyagana in muxuu ahaa lagu habeeyo si wadaninimo ah si aadaminimo ah si habsamiya walow tacliintooda ay wataan in muxuu ahaa la gaarsiiyo iskoolaadka hoose markii la gaaro in aan fidino waa inuu iskoolka geeyo isagana xol laga rabaa ma jiraanin laakiin kulleeyba iskoolka inuu geeyo khasban bay ku tahay ilaa uu ka gaaro iskoolka muxuu ahaa dhexe meesha ku dhamaado markaas ka gadaal waa u leexan karaa ilmuhu ama farsamo xageed ama waa wadan karaa tacliintiisa hadba soo isagu rabo laakiin ilaa heerkaas in ay tahay duleynay waxaan filayaa inaad ka war haysaan wadanka markii kacaan ku dhashay waxaa ka furnaayeen iskoolaadka sare in yar baa ka furnaayeen waxaan filayaa Burco waxbaa jiray Hargeysana waxbaa jiray Xamarna waxbaa jiray xagee kale too wax jireen baan isleeyahay maanta waxay joogtaa halkaan hadda aan joogno waqtigaan hadda aan maanta marayno heerka uu joogo waxa weeye regional headquarter kastaba in uu ka furan yahay 15 region wadanku uu maanta u qaybsan yahay inay ka furan yihiin meelaha wali aan dadkoodu iskoolaadka dhexe ka soo baxay ayaan qaadan karin 15 haday gaaraan qof in iskoolkii loo furo secondary kuleeka intaas laakiin in meeshii magaalooyinka dadku ku badan yahay iyadana in loo furo matalan waxa kamida jawaama kamida waxa kamida markaa kamida waxa kamida meelaha yani populated-ka ah oo dad badan ama iskoolaadka hore ay u jireen yani iyagu inay ku xiran region ahaan laakiin ay ku xiran tahay umada muxuu ahaa waxbarasho iskoolaadka dhex ka soo baxeen in district kastaba markaas iskoolaadkii awalta regionka kaliya joogi jiray ama anagu gobol baan regionka niraanaa si hadda ka bacdi aan af Soomaali ugu hadlo districtgana degmaan niraanaa marka awalto joogi jiray gobolka in loo daadajiyo ilaa muxuu ahaa degmada in loo daadajiyo si ilmihii tuulada ka soo baxeen oo elementary ku soo dhameysteen ama iskoolaadka hoose ku soo dhameysteen ay koodii meesha u dhow ay uga geli karaan haddaan weli korsi aado waxaan filayaa inaad ka war haysaan in jaamacad rasmi dalka ay ka dhalatay muxuu ahaa leh xubno badan oo jaamiciye leh tii dhakhtarnimada tii muxuu ahaa dhakhtarnimada tan xoolaha tan awalta nusuuska kuwii la baran jiray oo ahaayeen muxuu ahaa siyaasadda sharciga dhaqaalaha maxaa ku kordhay iyo hadda in ay magaranaysaa ay jiraanin tii beeraha tii saraaca inay jiraanin midda muxuu ahaa la yiraahdo farsamada runta loo yaqaano scientific subjects ku leexan karaan oo matalan ay ku jiraan macdan baarka xisaabiyaha ama xisaab aqoonka midka dheer ama muxuu ahaa noocyahaas faraha badan oo online-ka ballaaran leh ay ku jiraan waxaan filayaa 1 iyo 10 iyo 12 faculty inay tahay waqtiga hadda ay siinayso kuwa ay aan xulanay kuwa yaalka hadda noogu daran marba waxba daran laakiin maanta heerka aan marayno kuwa noogu darano maamaha run ahaan markaan halkaas ka hadlaayo dhibaatada ugu ballaarnayd waxay ahayd oo noogu weynayd
aan lahaynin macallimiin xaafadaas muxuu ahaa aada qiimaha ballaaran ugu leh tacaliinta adamiga macallimiintii waxayna kaliftay inaan marka macallimiin badan aanu ku qaadno crash oo markaa aanu ku xerayno college dad fara badan waan filayaa 700 iyo googo inay hadda yihiin 200 oo meel ah 300 oo meel ah xankalo meel ah yani inaanu saas ku xerayno sanada hadda aanu joogno waxaa galahaya xawaaley qiyaas 1500 oo macallin oo loo darbinayo inay iskoolaadka hoose wax ka dhigaan oo dhalinyarada ka soo baxay iskoolaadka sare ama iskoolaadka dhexe kuwa waxaa ka mid ah matalan midda dhakhtarnimada xoolaha midda dadka midda macallinimada midda tan kuwaan xaynta oo isku kuusan oo sanada hore wada soconaya ah xagga macdan baarka xagga xisaabaadka dheer xagga engineerinka ama ha ahaato dhismo ama ha ahaato mechanics ama ha ahaato noocyahaas badan oo faraha badan ugu dambaystii in muxuu ahaa aynu la dirirnay 72 wixii ka dambeeyey markii aynu afkeena hooyo qormadiisa aynu hirgelinay anna aan moodayay inay guusha guul inoogu fiicneed ay ahayd in aynu gaarnay heer fiican dadka magaaladu inay intooda badano inay wax bartaan haatana aynu u gudubnay inaynu miyigii kala dagaalano bal bacdama qof walba afka hooyo uu yaqaano inuu barto siduu isugu cuno amaba xariiqdimaha kan loo yaqaano xariiqdimo la yaqaan laguna heshiiyey conventional science-ka kanu ilaa farusaas weeye degmadeediye in dadkii la baro haddana sidii la isugu cuni karo oo qofku ugu isticmaali karo in la baro haatana waxaan idinka sheegi karahayaa walow waxyaalo kale ay la jireen haddaan laynka kaliya aado waxaan idinka sheegayaa ardada ku maqano haddii laga reebo militariga boliiska iyo dadka shacib weynaha ah haba u badnaadeen dadka shaqaalaha iyo gulwadayaashuye waxa weeye 22 kun way ardada maanta banaanka ku maqan maalinkan maanta inta kale markii laga reebo marka waxaa runtii farax weyn ah iyadoo hadda muddo 3 bilood dhan baan filayaa inay socotay waxaan isleeyahay haddayba xiisihiisii batay baan isleeyahay tacliintii waxaad moodaa inaan ku yara fogaaday haddaan wax ka tegayna muxuu ahaa xantaad kaga dhergi doontaan ragga aan meesha wada marayna waa badan yahay meeshii juqeeya ama aniga bay weydiin